xukunka dacwadii muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay si rasmi ah maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ugu dhawaaqi doontaa 12 Oktoobar ee sanadkan 2021 sida uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka waxa uu ku yidhi alxamdulillah waxa farxad ii ah inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago in maxkamadda cadaaladda adduunku ay xukunka dacwadii badda ee Soomaaliya iyo Kenya soo saari doonto 12 Oktoobar ee 2021 ayuu Mahdi Guuleed ku yidhi qoraal uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhowr jeer dib loo dhigay dhageysiga dacwadaasi iyada oo markii dambe ay maxkamaddu dhageysiga guda gashay balse dhageysiga dacwadda kama ay soo qayb gelin dhinaca Kenya waxaana dacwadda la qaaday iyada oo ay ka maqan tahay Kenya waxaana maqnaanshaha Kenya ee dacwadda badda loo fahansan yahay in sheegashadeedu ay tahay mid aan sharci ku dhisnayn. maxkamadda ayaa dhageysiga dacwadda soo gabagabaysay 18 Maarch ee 2021. Soomaaliya ayaa dhankeeda maxkamadda u gudbisay doodeeda afka oo ay maxkamadda ka horjeedisay 15 iyo 16 Maarch hase yeeshee 17 Maarch ayaanay maxkamaddu dacwad ka dhageysan Nairobi kadib markii ay Kenya diiday inay ka qayb qaadato dooda afka ee maxkamadda ka socota. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ICJ ayaa sidoo kale 17 Maarch ku gacan saydhay codsi ka yimid Kenya oo ahaa in ay dib ugu soo laabato dhageysiga dacwadda oo ay qaadacday 11 bisha sida ay sheegeen guddida matalaya Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii dambe ay guuldareysteen dhammaan wada xaajoodyadii labada dhinac. Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida dalka Kenya ayaa ay sirdoonka Kenya afduubeen 10 cisho ka hor kuwaasi oo ku qariyay meel aan la garanayn. ehelada professorka ayaa in muddo ah raadinayay waxaanay warbaahinta u sheegeen in ay garan waayeen meel uu jaan iyo cirib dhigay. hase yeeshee Professor Cabdiwahaab ayaa xalay dib u helay xorriyadiisa kadib muddo 10 cisho ah oo la haystay sida ay xaqiijiyeen eheladiisu. ninkan professorka ah oo ah falanqeeye siyaasadeed oo inta badan wareysiyada siiya BBC-da iyo VOA-da ayaa Arbacadii 8 Sebtembar lagu afduubay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyada oo la waayay meel uu ku sugan yahay tan iyo maalinkaasi. Cabdiwahaab Cabdisamed ayaa caan ku ahaa in uu aad u taageero madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo inuu aflagaadeyn jiray cid kasta oo ra'yi ahaan ka soo horjeeda. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin sababta loo haystay iyo cidda ka dambeysay afduubkiisa hase yeeshee xubno u dhow ehelkiisa ayaa sheegay in ay meel aan la garanayn ku haysteen ciidamada ammaanka ee Kenya gaar ahaan ciidamada sirdoonku. Professor Cabdiwahaab ayaa diiday inuu wax faahfaahin ah ka bixiyo sababta loo afduubay balse wuxuu uu sheegay oo kaliya in xaaladiisu ay wanaagsan tahay iyada oo laga yaabo inuu dhawaan ka hadlo wixii dhacay iyo cidda ka dambeysay afduubkiisa. xaaskiisa Xaliime Maxamed ayaa markii hore ku eedeysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inuu ku lug leeyahay afduubka ninkeeda hase yeeshee dib ayay uga laabatay hadalkaasi iyada oo sheegtay in la qalday. sida laga soo xigtay xubno ka mid ah qoyskiisa eedda loo jeediyay ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxaa Xaliime Maxamed ku cadaadiyay taageerayaasha Farmaajo si loo sumcadilo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. gudaha Kenya waxaa dhawaan ka dhacday dhowr dhacdo oo gabdho lagu afduubtay kuwaasi oo la sheegay inay ka dambeeyeen kooxo burcad ah balse waa markii ugu horeysay ee ay sirdoonku wax afduubaan. arrintan ayaa sidoo kale noqonaysa markii ugu horeysay mas'uul Soomaaliyeed oo ah siyaasi aad u falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya lagu afduubay gudaha Kenya. ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa muuqaal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhaxgamay kulan uu la lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil Naftali Bennett bishii August. Biden oo 78 jir ah ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Mareykanku waxay markasta ku eedeeyaan inuu yahay oday xasuustiisu ay sii xumaanayso isla markaana jirkiisu aanu lahayn adkaysi uu madaxweyne ku sii ahaan karo. Netanyahu ayaa muuqaal uu Axadii soo dhigay bartiisa Facebook waxaa laga maqlay oo uu codbaahiye qabtay isagoo oo sheegaya war ku saabsan in ra'iisul wasaare Bennett uu la kulmay madaxweyne Biden. Netanyahu ayaa sheegay inuu madaxweyne Biden intii uu socday kulankaasi uu madaxiisa celin kari waayay oo uu kolbo hoos u dhacayay sida qof hurdo la tabcaan ah oo kale. hore ayaa waxaa baraha bulshada loogu faafiyay
muuqaal la soo jarjaray oo laga dhigay in Biden uu ku hurdoonayo kulanka uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett. hase yeeshee baadhitaan ay samaysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu ogaaday in muuqaalkaasi uu ahaa mid been abuur ah. Netanyahu ayaa waxay saaxiibo ahaayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, waxaana la rumaysan yahay in aanu ku farxin guushii madaxweyne Biden. bishii Juun ee sanadka, dowlad isbahaysi ah oo ay ku midaysan yihiin xisbiga garabka midig, garabka bidix, dhexda iyo kuwa carbeed ayaa Bennett loogu doortay ra'iisul wasaare, isaga oo bedelay Netanyahu kadib 12 sano oo uu ahaa ra'iisul wasaaraha ugu muddada dheeraad taariikhda ee Israa'iil. ciidamo la sheegay inay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay bilaa mushahar ahaayeen ayaa xidhay wadda halbowle ah oo marta bartamaha beledweyne. ciidamo cadhaysan oo ka tirsan kuwa booliiska ayaa maanta xidhay waddada ugu muhiimsan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadan oo ah kuwa aad u cadhaysan dadka iyo gaadiidka isticmaalayay waddada laamiga ah ee halbowlaha u ah isku socodka guud ee magaalada beledweyne. sida ay wararku sheegayaan, ciidamada ayaa ka gadoodsan mushahar la'aan soo wajahday bilooyinkii u dambeeyey, taasi oo keentay inay maanta ku dhaqaaqaan tallaabadaasi. maamulka gobolka Hiiraan ayaan weli ka hadal dhankooga falka ay ku kaceen ciidamada boolisku, waxaana dhowr jeer oo hore lagu eedeeyay maamulkaasi inay musuqmaasuqaan lacagaha cashuurta ee laga qaada dadweynaha beledweyne. ma aha markii ugu horreysay ee ay ciidamo ka tirsan Hirshabeelle ay xidhaan isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada beledweyne, iyada oo ay ka cabanayaan mushahar la'aan haysata. magaalada beledweyne waxaa sidoo kale dhowaan qabsaday ciidamo ka tirsan kuwa militariga oo sheegay in ay kasoo horjeedaan qaabka awood qaybsiga maamulka Hirshabeelle iyo in madaxweyne Guudlaawe uu yimaado magaalada, inkasta oo markii dambe xaaladaasi la dejiyay xalna laga gaadhay.